asxaabteena ogaalka macluumaadada Tuyub. Assalaamu calaykum. barnaamijkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa 14 ciyaartoy oo ka ciyaara Premier League asal ahaan wadamada ay kasoo kala jeedaan iyo kooxay u kala ciyaaraan isla Premier League. lambarkeena koobaad waa Tyrone Wenger. dhalasho aan inuu haysto wadanka Ingiriiska asal ahaan inuu ka soo jeedo wadanka Barbados, wadan yar oo dhaca qaaradda Yurub. wiilkan wuxuu ciyaaraa kooxda Aston Villa ee ka ciyaarta Premier League, boos joogto ah oo ka haysto kooxda Aston Villa ee ka ciyaarta Premier League. magaciisa waa Tyrone Wenger. lambarkeena saddexaad waa Danny Rose. asal ahaan inuu haysto dhalashada wadanka Ingiriiska asal ahaan inuu ka soo jeedo wadanka Jamaica, wadan yar oo dhaca qaaradda Yurub. wuxuu ka ciyaaraa dambeedka dambe ee kooxda Tottenham, waana difaaca birta kaasoo ka ciyaara dambeedka dambe ee kooxda Tottenham. wuxuu boos joogta ka haystaa dambeedka dambe ee kooxda Tottenham. magaciisa waa Danny Rose. lambarkeena saddexaad waa Kyle Walker. dhalasho ahaan inuu haysto wadanka Ingiriiska asal ahaan inuu ka soo jeedo wadanka Jamaica, wadan yar oo dhaca qaaradda Yurub. Kyle Walker wuxuu boos joogta ka haystaa kooxda Man City, kuna jirta kooxaha ugu awooda badan laguna jecel yahay Premier League. wuxuu boos joogta ka haystaa kooxda Man City taasoo ka ciyaarta Premier League. magaciisu waa Kyle Walker. lambarkeena afraad waa Danny Welbeck. dhalasho ahaan inuu haysto wadanka Ingiriiska asal ahaan inuu ka soo jeedo wadanka Ghana kaasoo dhaca qaaradda Afrika. waa xidig u ciyaara kooxda Wolves, wuxuuna safka hore boos joogta ka haystaa kooxda Wolves ee ka ciyaarta Premier League. magaciisa waa Danny Welbeck. xidigeena shanaad waa James Tarkowski. dhalasho ahaan inuu haysto wadanka Ingiriiska asal ahaan inuu ka soo jeedo wadanka Poland kaasoo dhaca qaaradda Yurub. xidigan wuxuu ciyaaraa kooxda Aston Villa ee ka ciyaarta Premier League, waana xidig muhiim u ah shaxda kooxda Aston Villa ee ka ciyaarta Premier League. magaciisa waa James Tarkowski. xidigeena lixaad waa Callum Wilson. dhalasho ahaan inuu haysto wadanka Ingiriiska asal ahaan inuu ka soo jeedo wadanka Jamaica, wadan yar oo dhaca qaaradda Yurub. xidigan wuxuu ciyaaraa kooxda Newcastle United ee ka ciyaarta Premier League. wuxuu boos muhiima ka haystaa iyo nambar joogta kooxda Newcastle United ee ka ciyaarta Premier League. magaciisa waa Callum Wilson. xidigeena toddobaad ee kaga hadlayno xalqadan waa Fikayo Tomori. dhalasho ahaan inuu haysto wadanka Canada asal ahaan inuu ka soo jeedo isla Canada. Fikayo Tomori wuxuu ciyaaraa kooxda Chelsea ee ka ciyaarta Premier League. walow aanu ku jirin shaxda joogtada ciyaarta iminka, wuxuu ciyaaraa kooxda Chelsea. magaciisu waa Fikayo Tomori. xidigeena sideedaad ee kaga hadlayno xalqadan magaciisu waa Joseph Lingard. dhalasho ahaan inuu haysto wadanka Ingiriiska asal ahaan inuu ka soo jeedo wadanka loo yaqaano Grenada kaasoo dhaca qaaradda Yurub. xidigan wuxuu ciyaaraa kooxda Manchester United shayaadiin alxumur, wuxuu boos joogta ka haystaa isla kooxdan Manchester United, waana shax joogta. magaciisa waa Joseph Lingard. xidigeena sagaalaad waa Fabian Delphi. dhalasho ahaan inuu haysto wadanka Ingiriiska asal ahaan inuu ka soo jeedo wadanka Guyana ee dhaca qaaradda Yurub. xidigan Fabiano Delphi wuxuu ciyaaraa kooxda Everton ee ka ciyaarta Premier League.
waxayna ku jirtaa kooxaha ugu adag isla Premier League wuxuuna boos muhiim ah ka haystaa kooxdan magaciisu waa Fabian Delphi. xidigeena tobnaad ee kaga hadlayno xalqadan waa Ashley Young. dhalasho ahaan inuu haysto waddanka Ingiriiska, asal ahaan uu ka soo jeedo waddanka Jamaica, waddan yar oo dhaca qaaradda Yurub. Ashley Young wuxuu ciyaaraa kooxda shayaadiin xumar Manchester United ee ka ciyaarta Premier League. waa dambeedka dambe ee kooxda waana difaaca derbiga, waana kabtanka kooxda loo yaqaano Manchester United. magaciisu waa Ashley Young. nambarkeena 11aad waa Gio Gomez. dhalasho ahaan inuu haysto waddanka Ingiriiska, asal ahaan inuu ka soo jeedo waddanka Gambia kaasoo dhaca qaaradda Midowga Afrika. Gio Gomez wuxuu ciyaaraa kooxda Liverpool ee ka ciyaarta Premier League. waa kooxaha loogu jecel yahay uguna adag Premier League. waa dambeedka dambe ee kooxda Liverpool. magaciisa waa Gio Gomez. nambarkeena 12aad ee kaga hadlayno xalqadan waa Theo Walcott. dhalasho ahaan inuu haysto waddanka Ingiriiska, asal ahaan inuu ka soo jeedo waddanka Jamaica, waddan yar oo dhaca qaaradda Yurub. Theo Walcott wuxuu ciyaaraa kooxda Everton ee ka ciyaarta Premier League, waana kooxaha ugu adag Premier League Ingiriiska. magaciisa waa Theo Walcott. nambarkeena 13aad waa Bukayo Saka. dhalasho ahaan inuu haysto waddanka Ingiriiska, asal ahaan inuu ka soo jeedo waddanka Nigeria ugu qanisan qaaradda Afrika. Bukayo Saka kusoo iibsashadiisii lacagtii ku kacday balaayiinka dollar iyo in la keeno garoonka kooxda Arsenal iyo inuu khadka ka saaro Mas'uud Ozil. Bukayo Saka wuxuu ciyaaraa kooxda Arsenal, kooxaha ugu adag Arsenal. wuxuu ka ciyaaraa safka hore ee kooxda Arsenal. magaciisu waa Bukayo Saka. lambarkeena 14aad ahna ciyaartooyga ugu dambeeya xalqadeenan aan kaga hadlaynay. magaciisu waa Ruben Loftus-Cheek. dhalasho ahaan inuu haysto waddanka Ingiriiska, asal ahaan inuu ka soo jeedo waddanka Jamaica ee dhaca qaaradda Yurub. xidigan wuxuu ciyaaraa kooxda Chelsea ee ka ciyaarta Premier League. magaciisu waa Ruben Loftus-Cheek.